السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada waa maxamuud cashkan wuxuu ka mid yahay casharada ereydaha aynu ka qaadan jirnay cilmi academy halkan waxaynu ka arki doonaa tobankan erey meesha noo saaran ereyga koowaad waa credentials okay credentials waxaa la yidhahdaa qualificationka ama waraaqa uu qofku haysto oo tusay inuu yani waxaan soo barta just qualifications for example haddaan ku dhaho show me your credentials so that I can give you this job. It means qualification kaadi waraaqahaada iyo shahaadooyinkaadi tus inaad dhakhtarnimo soo baratay ama inaad macalinimo soo baratay si aan shaqada ku sii marka waxay isku macno yihiin qualification ama certificates oo shahaadooyin ah yes ereyga labaad cap waa in wax la istaajiyo ama la control yes for example try to cap your anger isku day caradaada inaad controlshid marka control ayay isku macno yihiin ereyga saddexaad decipher waxaa la yidhahdaa inaad fahantid wax aada u adkaa ama inaad fahantid wax kugu adkaa marka hore fahankooda yani to understand something that was very difficult for you to understand before yes wax kugu adkaa marka hore inaad fahantid ayaa la yidhahdaa decipher for example she deciphered the message quickly messageka ama akhbaarta si fudud ayay ku fahantay yes ereyga afraad defer waxaa la yidhahdaa yani wax inaad daahisid ama dib aad u dhigatid yes for example haddaan ku dhaho let us defer this meeting to for example 11 or 12 yani shirkaan aynu u dhigano 11 delay camal ama postpone yani waxa kani aan dib u dhigano yes ereyga shanaad definitive waxaa waaye meesha ugu dambeyso yes haddaan ku dhaho this is the definitive answer tani waa jawaabta ugu dambeysan ku siin karo okay ereyga lixaad delta waxaa la yidhaahdaa يعني meel waxaa jirta badii webiga isaga darsamaan okay badii webiga meel isaga darsamaan dhulka areadaas ku yaala ayaa la yiraahdaa delta yes waa webiga meeshu badda kaga darsamo erey saddexaad descent waxaa la yiraahdaa yani wax inay hoos u socdaan ascend inay kor u kacaan yes diyaaradda kor bay u kacday the plane began to ascend kor bay u kacday the plane began to descend diyaaradda hoos ayay u soo dhacday soo ma aragtid marka descend waa hoos u kicid ascendna kor u kicid opposite bay isku yihiin detergent waxaa la yidhaha walxaa oomadii walxaa noocaas ah ee dharka lagu dhaqdo waalasha lagu dhaqdo yes just like saabuunta oomada anything that you use to wash your clothes or your dish ayaa la yidhahdaa detergent yes ereyga sagaalaad devoid waxaa waye waxa kani markaysa when they are lacking something yes haddaan ku dhaho yani this room is devoid of furniture يعني gurigan alaabo u baahan yahay ama alaabo ma yaalaan it lacks furniture simple ama yani he is devoid of emotions isaga wax emotion ama dareen ma laha yes the last word ereyga tobanaad dilapidated waa wax markii xaalad xun ku jiraan maybe way duugoobeen oo way duqoobeen ama dayac fara badan bay la kulmeen meel bay iska yaaleen in muddo yes for example a dilapidated car it means gaari duqoobay oo duugoobay ama gaari meel inta la iska dhigay la dayacay deedna saa ku halaabo I hope it makes sense cashkeenta sayuu ka yahay keep learning and have a good day